kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni fanka iyo fanaanka. Barnaamijkan oo aalaba ku falanqeyno fanaaniinta iyo fankooda xaaladda ay marayso ayaa waxaynu barnaamijkeena maanta ku falanqeyn doonaa heesta cusub ee ay dhawaanahan soo saartay fanaanada caanka ah ee Asma Saban. Sidoo kale waxaynu falanqeyn doonaa hadalhaynta heesta iyo cidda loola jeedo. Sidoo kale maxaa ka jira furitaanka fanaanada iyo xaajigeeda inay kala tageen. sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa xogo ku saabsan Asma Saban iyo arooskeedii. Fadlan daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato subscribe saaro, sidoo kale fura gambalelka si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinaha halkan kusoo baahino. Kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019 ayaa waxa uu arooska Asma uu ka dhacay magaalada Hargeysa. Bilo kooban kadib waxaa soo baxay hadalhayn baahsan oo xagga arooskeeda iyo waxyaabo tiro badan oo laga hadalhayay arooskeeda. Intaasi kadib waxaa baraha bulshada iyo meelaha ay Soomaalidu ku xiriirdo qabsaday warar sheegaya in Asma Saban ay kala tageen saygeedii kaas oo ay u dhashay hal qof. Ayaamo yar oo kooban kadib waxa ay fanaanadu soo qaaday heestan. heestan oo ah mid calaacal ah ayaa dadka daawaday waxa ay kaga falceliyeen kala tagga ninkeedii iyo dhiirigelinta ay siiyeen Asma Saban. Si kastaba ha noqotee waxay wararku sheegayeen in ay khilaaf soo dhex galay fanaanada iyo saygeeda oo ay nolosha ku kala huleeleen. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan daawade. Fadlan subscribe saaro haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato. Sidoo kale fura gambalelkaasi ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinaha halkan kusoo baahino. Waxay noo ballanaa barnaamijka xiga.